إنكان دوغاني قيسو نوروليدك هوغانك عصوبة إيران حالي لو على مساري مجتمع حسين خامنئي دحلay kursigii aabihiisii mayalka adkaa ee ku shahiiday horintii koowaad ee weerarada Mareykanka iyo Israa'iil wali toddobaadkii labaad ka wadaan gudaha Iiraan 56 jirkan ku dhashay isla magaaladii aabihiis ku aababay hoy culimaadka mashaad lagu magacaabo ee dalkaas waxa lagu waramay inuu ku suntan yahay mayal adayg shisheeye nacayb go'aan adayg iyo inuu ku dhiiran yahay dhacdo dagaalka iyo xoog wax ku doonka bedelka xasiloonida iyo wada xaajoodka waxa goor horeba lagu waramay inuu ka takhalusay nidaamyadii qorshaysnaa ee wada hadallada Mareykanka iyo Iiraan waxaana la sheegay inay dhab uga go'an tahay waargudida aabihiisii ku aababiyay siyaasadda iyo diinta ee uu cimrigiisa oo dhan ardayga u ahaa kaasoo isaga hooyadiis xaaskii mujtamac iyo xitaa walaashiis lagu wada kharajiyay howlgalkii koowaad ee weerarada huwantu ka wado Iiraan 88 xubnood golaha khubarada loogu yeero ee lafahaantoodu wadaadada shiicada ka kooban ayaa mujtamac u xushay hogaaminta Iiraan oo ku jirta mid ahaan xilliyadii ugu adkaa taariikhda dalkan hubantilaanta mustaqbalka wadankan dagaalka culus bartamaha uga jira ayaana mujtamac ka dhigay musharaxa ugu mudan ee marxaladan adag hogaamin kara Iiraan war kooban oo doorashadiisa lagu shaaciyay ayaa lagu yiri waa in dhammaan khubarada hogaanka wadanka iyo indheergaradku daacad u noqdaan hogaaminta mujtamac oo la shaqeeyaan mid naadir ah ayaa inaan ninkani weligiis xil u tartamin jago sare oo cayimana qaban midda kaliya ee magaciisa lagu xusaano tahay inuu lahaa saameyn daaha gadaashiisa ah oo ku koobnayd go'aanada talineed ee kooxda ku xirnayd hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee dalkan aabihiis Cali Khamenei xitaa weligiis kama hadal mawduuca xasaasiga ah ee ahaa bedelida booska aabihiis waxa uu iska ilaalin jiray ka soo muuqashada kaamirada hadalkiisa magarafoonka ayaa yaraa weligiisna dalka kama bixin xiriirkiisa ugu dhowna marka aabihiis laga yimaado waxa uu la lahaa hogaanka sare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee ah ciidanka ugu awoodda badan militariga Jamhuuriyadda Islaamiga oo mar lafahaantooda ka mid ahaa waa intii uu socday dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan oo ku soo beegmay waayihiisii tababarka ciidanimo oo qayb ka ahaa hanaankiisa waxbarasho isla docda waxbarashada mujtamac waxa uu ka baxay dugsiga sare ee lagu magacaabo Alavi ee caasimadda Tehran oo loogu yeero hoyga tababarka horyaalka ama elite-ka Iiraan inta dabadeed wuxuu magaalo cibaadeedda shiicada ee qoom ka raacday barashada culumta fiqiga iyo shareecada maadaama isagoo ahaan weyn uu mujtamac bilaabay barashada culumta diiniga waxa lagu waramay inuusan weli gaarin darajada ayatollah ee ah mustawaha ugu sareeya culimada shiicada marka Iiraan la joogo hayeeshee waxa la sheegaa inuu wax ka bartay qayb ahaan scholarska shiicada ugu magaca weyn sida Maxamuud Hashimi Shahrudi Maxamed Taqi Misbax iyo aabihiis Ayatollah Cali Khamenei taasoo ka dhigaysa culimada darajada dhexe iyo mid ku hubaysan cilmi ugu yaraan ku filan hogaamintiisa xogaha qayb gaar ahaan macluumaadiyada la heli karo ee mujtamac la xiriira ayaa wariyay in ilaa 2024 uu bilowday dadaal hoose oo u muuqday in loo diyaarinayay bedelka booska aabihiis waaga waxa uu joojiyay culuum isagu bare ka ahaa oo uu ka bixin jiray magaalada Qom waxa uu si rasmi ah ugu soo wareegay caasimadda Tehran waxaana uu dhab uga agdhawaaday aabihiis Cali Khamenei oo uu si guud noloshiisa oo dhan arday ugu ahaa mujtamac waxa lagu waramay inuu door la tashi iyo go'aaneed ku lahaa jaangoynta siyaasadda hubka Iiraan gaar ahaan madaafiicda ridada dheer iyo hindisayaasha nukliyeerka dhismaha iyo horumarinta ciidamada ilaalada kacaanka ilaa xakamaynta dibadbaxyadii siyaasadeed ee dalkan ka dhici jiray oo si gaar ah kii 2009 isaga lagu eedeeyo inuu lahaa go'aankii lagu xakameeyay ee awoodda ciidan loogu adeegsaday sida ay sheegaan mucaaradka Iiraan inuu dhaxlo booska aabihiis waxa ay tusaysaa ka go'naan heer qaran ah oo ku wajahan oo argudista Cali Khamenei waxay diraysaa fariin ah inaan Iiraan isdiibin waxa ay sidoo kale muujinaysaa in Iiraaniyiintu raalli ka yihiin in reer Khamenei iska dhaxlaan xilka wadanka ugu sareeya taasoo dhab u tusaysa kalsoonida shacabka iyo waxgaradku ku qabaan hogaaminta qoyskan waxa ay doc kale muujinaysaa dareenka cabsida leh ee inaan Mareykanka iyo Israa'iil xidid sibi karin hogaanka wadaadada Iiraan dabaldegyada shucuubta Iiraan ee lagu soo dhaweeyay doorashada Khamenei cusubna waxa ay ka dhigan tahay in dhinacyadan ay si rasmi ah ugu fashilmeen qorshahoodii bedelida hogaanka Iiraan oo aad moodo inuusan soo dhaafin geeridii Khamenei Donald Trump ka Mareykanka oo ka hadlay doorashada dalabada Cali Khamenei ayaa ku gaabsaday weedha waanu arki doonaa waxa dhaca taasoo ka dhigan inay dhowrayaan ficiladiisa ugu horeeyay ee hogaamineed si ay u jaangooyaan waxa ay ka yeelayaan ugu Mareykanka iyo Israa'iil waxay maalmihii dhawaa ku celceliyeen inay kharajin doonaan bedelkii walba ee loo caleemo saaro booska Ayatollah Cali Khamenei